waxaana uu ku yidhi imaamkii allaha kugu kaalmeeyo waxaad la diristay nin aad u shar badan oo dhibaatadiisa ay daran tahay. Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran saad suuban, ku soo dhowaada sheeko kale oo aad u xigmad badan. Waxaa jiray dad magaalo ku noolaa. Dadka waxaa ka mid ahaa nin aad u xuma oo deriska aad u dhibi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah masjidka xaafadda waxaa ku soo dugtay nin cusub oo aan laga garanaynin xaafadda. Imaamkii masjidka iyo nin kale ayaa ku yidhi, ma marti baad tahay mise safar? Ninkii waxa uu ku yidhi, wixii maanta ka dambeeyo waxaan ka mid ahaan doonaa jamaacada masjidka oo waxaan iibsaday gurigaas oo meel hebla ku yaala. Ninkii imaamka ahaa ayaa ku yidhi, oo ma guri kale ayaad weysay? Ninkii waa uu yaabay, waxaana uu ku yidhi imaamkii allaha kugu kaalmeeyo waxaad la diristay nin aad u shar badan oo dhibaatadiisa ay daran tahay, oo maxaa ku dejiyey halkaa? Ninkii waxa uu ku yidhi, aniga ma aanan ogeyn, idinka ayaa hadda idinka maqlay, wax aan samayn karana ma jirto. Imaamkii waxa uu ku yidhi, allaha kugu kaalmeeyo waa nin shar badane. Ninkii markii uu masaajidkii ka soo noqday waxa uu albaabka u garaacay ninkii sharta badnaa. Ninkii markii uu ka furay albaabka waxa uu ku yidhi, inta si fiican uu u salaamay ayaa waxa uu ku yidhi, waxaan ahay deriskaaga cusub, waxaana ku soo dugtay hadda masjidka. Imaamka iyo jamaacada masjidka aad ayay kuu ammaanayeen, waxaana ay ku lahaayeen, ninkaasi waa nin wanaagsan, waxaadna heshay deris aad u fiican. Anigana aad ayaan ugu farxay derisnimadaada. Ninkii waa uu yaabay, waxaana uu ku yidhi, ma imaamka masjidka ayaa aniga ay ammaanay? Ninkii waxa uu yidhi, haa, weliba si daran ayuu kuu ammaanay asaga iyo jamaacadaba. Ninkii waa uu yaabay, oo ma aniga ayuu i ammaanay? Haa ayuu ku yidhi ninkii, asagoo yaaban ayaa haddana waxa uu ku yidhi, caawa waan ku casuumayaa maadaama deris cusub aan ahay, hana iga diidin ee igu imaw guriga. Ninkii waa uu oggolaaday. Waxaa loo sameeyey casuumaad heer sare ah oo aan la arag. Ninkii asagoo yaaban ayaa waxa uu ku yidhi, maxay tahay casuumaaddan oo keligay la ii sameeyey? Waxa uu ku yidhi, waxaan kuu caddaynayaa in aad tahay martidayda qaaska ah, deriskayga qaaska ah, saaxiibkayga qaaska ah. Markii ay wada casheeyeen kadib waxa uu u soo bixiyey hadiyad, waxaana uu ku yidhi, hadiyaddan adiga ayaa iska leh, anigana waxaan ahay qof nasiib badan maadaama aan adiga deris kula noqday. Ninkii asagoo yaaban oo isla babatay ayuu gurigii ka soo baxay. Habeenkiina waxa uu ku seexday farxad aad u badan. Ninkii sharta badnaa subaxii waqti hore ayuu soo kacay, waxaana uu albaabka ku sugayey saaxiibkiisa cusub si uu u raaco masjidka. Waana ay israaceen. Markii ay galeen masjidka, jamaacadii oo dhan ayaa aad ula yaabtay. Ninkii deriska cusbaa intay gooni ula baxeen ayay waxay ku yiraahdeen, oo maxaad u soo sheegtay? Waaba yaabe. Ninkii waxa uu ku yidhi, waxaan u adeegsaday xigmad. Ninkiina waxa uu noqday qof aad u wanaagsan, deriskii oo dhanna waa ay jeclaadeen. Waxayna tusaysaa xigmadda wanaagsani in ay beddeli karto qof shar badan oo ay ka dhigi karto qof wanaagsan. Haddaba saaxiibayaal, sheekadani waxayna tusaysaa xigmadda in qofka sharta badan uu lahaan karo wanaag, haddii si xigmadaysan loola dhaqmana laga soo saari karo wanaaggiisa. saaxiibayaal, muuqaalka laag inoo saar kuna soo biir channelkeena saad suuban. mahadsanid.